afartii leed macnaha khayraanka go'aasta taas ummadda Soomaaliyeed ka fiirstaan alaabaha ay dadku u qaadayaan taaga dadka ay u qaadayaan maxamuud ka keen adiga maxamuud ka soo qaada ku qoran leha maxamuud waa qofkan ka soo qaaday tirabeelka weerarada kala gudbinta noocyada daraagiska ee xuduudaha caalamiga ah dartood waa ay duleeshadaan mararka qaar sistamyada amniga ee loogu talagalay ka hortagooda waana ay ugu sii daran tahay marka dhagarihii gaangiska loo soo raro sida xalwada dhex dhigo xirmooyin kiniinyaasha basiga isticmaalkooda isku bedela daraagis madax gal ah bilibili iyo tramadol koox ka kooban 4 rag ayaa halkan u taagan inay doorar kala duwan ku lahaayeen lahaanshiyaha fududeynta iyo gudbinta daraagiskan la dhexmarsiiyay garoonka aadan cadde ee Muqdisho ilaa la gaarsiiyay dalka Sacuudi Carabiya dable booliska Cabdiraxmaan Maxamed Saayil oo ka tirsan ciidanka booliska iyo dable Niisa Maxamed Yuusuf Maxamed Sonkor ilaalada shacabka waa labada shakhsi ee soo indisay mishinkan hal jeer ayay mariyeen 4 kiilo xalwada taasoo lagu dhaxqiyay kiniinyaal loo isticmaalay maandooriyaal waana 13 bishii 2024 iyadoona ka gudubtay labada airbood ee Muqdisho iyo Jidda sidaasna ay ku gaartay kooxdii loo waday 10 maalmood kadib 23 bishii 2024 waxay ku dhiyeen xaddiga daroogada 4 baakad oo bilibili ah iyo tramadol isugu jira ayaa la dhex dhigay 10 kiilo xalwa waxaana kor looga daday mara baati ah kadibna ay geeyeen xafiis ku yaala kilomitir 4 oo ka shaqeeya kargooga ee Belidogle Cargo dalabka ayaana ahaa in la geeyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyagoona reebay xiriirka shakhsiga loo geyn lahaa alaabtaasi oo ah saaxiibka eedeysana Cabdiraxmaan Saahil waan soo qaaday waan geeyay xafiiska oo Belidogle wakaas yaa kula socday alaabta waxa ila socday ninkan ay la socday maxay ahayd alaabtu waxay dhar baati ah iyo xalway ahayd alaabta waxa laga dhaxeelaa lahayd daroow waana loo soo sheegay jumcaha ay soo sheegeen subaxii alaseydii aye qolada xafiiska ay soo wacday markii koobaad imaysan soo wicin markii labaad bay soo wicin maalin jumcaha taariikhdu ay 22 tahay subaxii alaseydii ay soo wicin alaabtaaday alaab kale ka shakisanahay bay dhaheen oo kareemi qasqas ah marka wax ma ka ogeed kamaan ogeyn baa ku yiri saas ay u jiraan maxamuud ka keen adiga maxamuud ka soo qaada ku qoran leha maxamuud waa qofkan ka soo qaaday waana is soo raacnay oo xafiiska isla nimid inta la keen marka alaabta ka soo qaaday ya halkee ka soo qaaday alaabta amaanada asaga loo dhiibay ma ahayd mise asna meel kale ka soo qaaday taas ilaaha shay kara asaga ka jawaabi kara laakiin anigu meeshaan asaga ka soo qaaday xafiiska nageennay wakaas ma gudoomiye maxamuud soo istaagay alaabta inta ka keentay maxaa tiri alaabtaan markuu warba Cabdiraxmaan awsay aye maanu yimid waxa uu dhahay inuu sidaas afraba meeshaas arba maartay meel uu shinay isdaba waa waday meesha geeyay soo gatay waa kala tagnay ka bacdi soo wacay intii joogta ugu dhaay xaafada jooga ku dhaay ma ugu dhaawaa u tagay agency asla adnay agency alaabti geeyay magaalada si wada galnaa asiga hadda maalin dhaweeda maaragtay aan ii sheegay ninka inuu xiray waa arinta loo xiray waa kaasa gudoomiye maxamuud ka soo qaaday maxamuud wax ka jira ma laha ala muxuu ku warsaday arintaas faafaahay kaniiniga muxuu ahaa inuu warsaday ninka saaxiibkay u ahaa Cabdiraxmaan maalin igu yimid shibis noo wuxuu ugu dhahay klinigan bilbilinka u baahanahay intaasaan kaga baahanahay intaas maxaa meeqwa intaas 4 bokso kaga baahanahay annaba wada meesha lagu gado aagay gudoomiye xalwadan iyo waxaan isku dhex jiraan iyo eedan na asaga mas'uulka marka maalintaas meesha gelisay afar boxal la galay halkan ilaa ma la galay meeqa kaniin waan halkaas kaniin la waa maalinta labaad kaniin kale mooy markii labaad isla kaniinigaas la waa isla kaniinigaas la galay gudoomiye inta la gadaa kaniin inta loo gadaa maana boli waa kaasa halo isticmaala kaniin wallahi ana aqoonteedu ma lihi askari ahay aqoonteedu ma lihi gudoomiye انت وضع هكذا اوكي لكن walaalkay Sacuudiga jooga wada u leh waa u dhahay walaalkay Sacuudiga jooga alaabtan u dhibaa marka adeegan oo kliniga aniga ma ogi laakiin xalwada waa ka warhaya aye klinigan waxa dhex galiyay waxaas dhanna
marka asaga xafiiska soo waceen oo soo waco ii sheegay ina waxa ku dhahay waa ku kaliya ku dhahay ani waxaan ka ogaa ma lahan waxaan kula sameeyay ma lahan waa kaasa gudoomiye adiga dhakhtar ma tahay maya muxuu kaaga soo doonto kaniini oo magaalada Kiila meesha lagu gado oo weydiinaa kaliya dukaanka meel farmashiye ma lagu gadaa dukaan lagu gadaa dukaan caadi Abdurrahmaan hay صاحبك وكنا alaabtii loo dhigay aad og tahay in luuq walba oo Muqdisho ka tirsan lagu gado inaan asaga raadsanayn marka anigu Sacuudiga ku dhashay ku barbaaray aqoontaydana waxaan ku soo qaatay dalka Turkiga ku soo qaatay muddo 3 sano aan hadda dalka ka soo laabtay Turkiga la yiraahdo oo aan ku soo biiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed marka wakaas madana gudoomiye maxaa Sacuudiga u soo tagtay laygama soo tarxiilin records-kana waa la baari karaa annagoo nabad baan annagoo familkeena ka soo guurnay oo guriye ka gadanay dalka Turkiga wax criminal record ana noloshaydana ma galin wakaas halkee ka tirsantaa booliiska markii hore waxaan ka tirsanaa fadhiga daraawiishta haddana waxaan ka tirsanayaa hoggaanka Interpol iyo xiriirka caalamiga ka tirsantaa gudoomiye waa marka koowaad u imaanayay ahayd maaragtay oo yimid wuxuu u dhaanay how waa beriya maaragtay baal qaali ka yahay baalkee kaliya bilglinka dhinaciinaan ka waran marka yaraa wacay aa weydiiyey wixii maaragtay kaga saabsan asagana wuxuu ugu jawaabay inay $4 baakadi tahay kadib saaxiibkii uu sheegay inuu saasaa jirtaa ku dhahay qiimahaasaan la siinaa meeshaan ayuu ku imaanaya ugu dhahay waa mid hadda ku sheegay oo yimid waa waday waa geey dukaanka aniga gudoomiye marka hore waa beri loo gadaa marka hore waa beri asaga soo wadaa aan waa beri madigan marka aad bina maraboni aan mangola digan maxamed bashiir ninka uu sheegay waa sax waa ninka aniga asaga niskeen barawaaya ninkaasna wuxuu ka tirsan yahay ciidanka waagi Shariif la qaado ka tirsanaa ee Qatar hadeertaana Qatar uu joogaa taleefkeeda soo qabataana waa idin la siin karaa Qatar uu ku nool yahay wiligiisna Sacuudi muusan tigin asna waa ila mid fasaxiis xamru yimaada asoo fasax xamru joogaa ninkan aan iskeen baray ninkaas Sacuudiga ma joogo Qatar uu joogaa gudoomiye ciidanka oo Qatar uu ka tirsan yahay magaciis maxamed bashiir allah asagana marka qadar idin waa soo dalbay sameeyaa xagga ma qiraalka oo saaxiibkii wuxuu ku sheegay inuu ninkaas Sacuudiga joogo aniga alaab ninkaas uu soo dirsaday anina uu soo dirsaday oo la dhahay u tag Maxamuud ka soo qaad alaabta Sacuudiga uu soo dhiib marka ninkaas Sacuudiga muu joogaba in Sacuudiga jooga waxaas dhaasama ma intuu jooga Qatar uu jooga marka qadar ma lagu dhiibay alaabtaas naftiisa maya waxa shaqo kula ninkaas arinta magaca oo magac ninka magac lagu bari magac hadda magac waa qaldamaan magacaasi how ninka Instagram-ka waxa uu qoran tahay Cabdi Fataax marka Instagram-ka la hadli jiray fi sawirada waxa aan soo dhiganay oo ka bixin jiray comment iyo like marka magaciisa Cabdi Fataax uu qoran gudoomiye marka Cabdi Fataax u taqaana marka Cabdi Fataax waa aqaanani maana oo asaga oo Abdurrahmaan Cabdi Fataax oo iskeen barma maxamed shirka maxamed shirna ciidamada qadar oo kamid yahay waa kan Ismaaciil Yuusuf Axmed Shanle maamulaha shirkadda oo isna qaaday alaabta 24 bishii 11 2024 gudahana u geliyay airportka Aadan Cadde alaabta waxa ay keenin nimankana ay keenin nimankee labadan qofood taban ka ugu horeey ana joogi aniga waxay ahayd kor u qaadkaaga 4 kiilo ahayd ana joog bis waxa inaga baara yarka lijoos fiican ugu baaraan dhahay shaqaalan oo ah waayo waa baar u dhahay okay bis way alaabta kala ku darnay waa dirnay xagee ka qaateen 4 kiilo tabankii kiilo keenay aan ma joogin galabay keeneen yarkana ma joogin meel ay dhigin dariskeena lagu dhaafeen subaxi isa soo qaad warniyo wili waxaan dhahay alaab had ma qaadi karin naga dhafaaji waa soo diray sidii ku soo diray meeshii aan ku dirnay gabadha Sahara alaabtu waa cabirnay ana cabiray alaabtan waxay ku jiro xawli aan ogaa wax kale ma ogeen aan hadaan ogaa ana ku dhawaan lahayn dafad aan marino ujeedaanay dhimalaad
alaabta waa cabirnay ninka saaxiibkay borow aan shan alaab badan aan watay oo 6 shay ah san hal shay watay hal shay uu soo darsaday sahar u dhiibaan dhahay saharin waa walaashayna waqti ixtiraan naga dhaxeeyo waay waa si shaqeyn sidii ugu dhiibay markii yarkii meesha tagay alaabtii yarka waa ka gaari waayay waxay noqotay maalinta jimcaha jimcada markay noqotay yarka alaabtii qudbinka laga soo baxay uu leeyahay alaabtii lagu qabsaday waay maxaa jira waay alaab oo xawlo oo kaniin laga soo saaray lagu qabsaday وساس ميها بس نكان وعي واسكرسني نمكان نمكود مهين أنا يرك شقينا على بركة وعي وأربطان جميع أنا وحسب جيران ولا وهي بلا سوء ما نعرف سأسوقين شغال كجرا هو يتمنى عنه إنه ألعبتنا لشيء ويا سوى جيران على ما أنا ملي ألعبت حوله هاد قبل أنا مش يجوب تقدر أو يمنا وحكي معه ولا ما لما وركي السعودة ما لسدحات أسأل وعي وحده هي شنو alaabti waa ii geen weysin walaalkay la qabsaday lacagtan ku iimaana aniga markii waxaan sameeyay koran siyaadiyan tagay warbixina gudbiyay si wax u jiraan ana u sheegay waxna waa u bishan ku sheegay ninka soo cararaay inuu imaado iskuulkii ma soo soo dhahay laba iska diyan diyaarsaday meesha joogan ninkii waa isu socdaa way bis jooga la ninkii siyaa lagu qabtay ninkan saan u joognay waxaan si meesha aan ugu jir dacwadii oo nalaga qaaday ninkan maxkamadda loo waday waxba loo soo qoray kulay isaga beel waxa noqon waa loo soo qoray waxaan u jeedaa markii dambe anigoo warqad socoto xabsiga tahay maadaama ninkii ana dambiilaha keenay insha allah adiga waa baarnaa hadir si u baarteen maxaa sameysay marka alaabta ladin keenay wallahi xawlada waa taqaan adi sana u qabtay sana loo qabtay yarkii uu sheegay sana u qabanaa wax kale ma qaban karo waxa hoos laga keliya awan karo ورا اللي يدين بورو دكسو قال انت بورو الوضع هذا لو كان مو بورو wuxuu ku soo galay levelka gabadhu u dhiibay bis uu ku soo gal boro gabadha zahara aan levelka loo dhiibay uu ku soo gal levelka gabadh saarna uu geeyaan dhahay ina shaqa naga dhaxayso ixtiraan naga dhaxayo zahra miya mis xabiibo meesha magac xabiiba ku qoran magac iqaamada ku wataas kama ay ku qorata magac absami zahara abdullahi la yiraahdo qofka ku dhahay walaalkay ali xikee waay كيف والاستقبل اللي قفلت له في غايه معقول هاي اللي كان معقول walaalkay la xiray انت لو حري sacuudiga lagu xiray u dhahay lacagti aad siisay miisaanka sii wada ii imaawan dhahay soo keen qofku walaalkii sacuudi lagu xiray waxa waaye Cabdiraxmaan يفرس عبد الرحمن ما يقمر أخوك ما يقمر على الطقاد لا بجرا eedeysana shalay warqadda labeelka lahaanshaha alaabta ku wareejiyay eedeysana xasan maxamed axmed borow ayaa isna aqoon hore ugu dhaxaysay darteed ugu dhiibay dhibanada xabiiba maxamed jaamac oo sacuudiga u safraysay markii ay degtana lagu qabtay madaarka jidda iyadoo aan war wahayn waxa ay wado waxna hadda ay ku xiran tahay dalka Sacuudi Arabia arintan qadiida inta ka soo gashay hal boorso watay boorsada miisantay shan la hortay alaab miisamday markii miisam marka halka leebal waxa dhay alaabta igu dar leebelkii alaabta ku daray أنا ورقدي هاي الزهرمي صومرتي ليبل كي مركب أو في أسوتي أنا أبي ليبل زهر أنا سي من دونك جو جيري إذا كسير سنوقي دي من على كم ليبل كم أنت أسأل هذيك الليبل كديت ليبل كديت بس مركب ميزان كعر ما معي ميزان بورصة أنا يسوع ميزانتي وحق اللي بهناي نك أنا بهناي أصلا ألعب تصاب بهناي جيري أو بهناي marka zaar waan dhaynaa alaab leebal kan banaanka loo geey ninkaas loogu wareeji waa ku wareejisay idoo iska baahday ninkii marka alaab soo doonay marka shan alaabta dhiibay wax laga helay ninkii marka meesha laga qabtay saasa maqlay marka laakiin aan leebal u dhiibay zaar leebal u dhiibay alaabta dhiibisi shan lama ku sheegay waxay tahay maya aan boorso ilay ku warhaya maxaa wadaad maxaa hal boorso wataan oo aan miisantay asna horta alaabta miisantay way taamooyay هذا محيه هل حبان كو درستي ليبل كيس علابتا اود وديبس محيه درها در ها در انت اللي ديب حق لو ديبا لو ديبا ها xafiiska xiraalinta ayaa si maqal iyo muuqaal uga sharaxay garsoorka nuuca ay tahay daroogada Soomaalida ay la baxday bilibili ee uu faldambiyeedku ka dhashay xiriirka kooxda dalka Sacuudiga u safraysay maandooriyaha muuqaal cadeema oo ay duubtay CCTV
iyo xogo kale. kiiska labadan askari ayaa asal u ah waa nimanka faldambiyeedkan daroogada lagu gudbinayo oo dal kale lagu geenayo dal uu waliba mamnuuc ka yahay lagana yaabo inuu xukunkiisa gaarsiisan yahay dil toogasho uu gaarsiisan yahay nimanka inta daroogada ka diyaariyay ee dalka Sacuudiga inay geeyaan oo ka gataan damcay waa labadan eedeysane marka koowaad faa'iido ka helay marka labaad lagu qabtay taariikhiga ay kala gudbeen waaye labada xalwo waa ka waana xalwada dhinacan jirta ee kalarada guduudka iyo cagaha buluuga leh way gudubtay waa tii gudubtay oo ay ku qoran tahay Cabdi Fataax Anyax shakhsiga Sacuudiga joogo ee alaabtan ay ku socoto waay shanle waa ninka agensiga madaxda ka ah ee eedeysanaha saddexaad ah alaabtan markii way gudubtay waa tii 4 kiilo ahayd way gudubtay faa'iido ka heleen lacag fiican ay ku dhufteen markaan 10 kiilo laga dhigay waa taasa kalarka kala leh qofka ay ku socoto from meesha la leeyahay waa cid ay ka socdo Cabdi Fataax waa magaca afgarashada Cabdiraxmaan uu leeyahay Instagram-ku ku isticmaalo saaxiibkiisna haduu ka warcaday qofka ay ku socotana waa isla Cabdi Fataax Sacuudiga joogo oo ayax lagu naaneyso oo kan kii koowaad loo diray ah telefoon lambarkii Sacuudi Arabiya kaasna hadda uu xiran yahay waa ninka uu leeyahay Cabdiraxmaan walaalkii ayaa la xiray agensiga uu daalaca u raacday oo yiri lacagteeda hal ii soo celiyo walaalkii ayaa dambi ku jira waaba xirtaanay sawirkaani waa sawirka iskaanka airportka markii xalwada la saaro sidaas uu soo qabanaya kaniiniyaasha hadda way ku dhex jiraan lamana arkaayo oo ma soo qabanayo ayadoo video ahaan maxkamadda tusi doona labada kaniini ee ka ganacsanayeen eedeysanayaashan isla markaana u dhoofiyeen dalka Sacuudiga waa labadan kaniini Tramadol iyo Bilgabalin waxay ula baxeen Soomaalida dhan ma wada taqaano haday baaraha cafwan saas u dhahay bilibili waxa bilibili ula baxay waa nimanka drugska ah ee isticmaalo oo kaliya dhaqaatiirta waaweyn ee dalka joogta hadii la weydiiyo bilibili ma taqaanin la yiraahdo hal qof oo yaqaan ma ku jiro magaciisa rasmiga ah ee loo yaqaan Bilgabalin waaye bilibili waxa ula baxay nimanka isticmaalo drugska oo kaliya Bilgabalin waa daawada qalalka ama suuxdinta oo loo yaqaano anti-convulsant waxay u shaqeysaa iyadoo hoos u dhigaysa fariimaha maskaxda ee keena suuxdinta ay hoos u dhigtaa Bilgabalin waxa kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunada neerfaha ee dadka qaba sokorowga diabetic ama dadka dhaawaca ka qaba laf dhabarta oo isticmaalida balwad ahaan ee Bilgabalinka ama bilibiliga waxay ka dhigtaa dadka isticmaala inay dareemaan nasasho si la mid ah kuwa isticmaalo qamriga oo kale macna booska qofka caadiga markuu isticmaalo uu dareemayo qamriga waxa uu ku dareemayo oo ah inuu maankiisa uu baxo maandoori ahaan ayuu si la mid u dareemaya bilibiliga saameynta uu leeyahay saameynteeda dejinta maskaxda ah ay ku kadsoomaan kuwa isticmaala taasoo u horseeda qabatin aan la iska jiri karin hadhoodii hadii uu qabatimaayo hadoo dhowr jeer isticmaalo calaamadaha uu dareemo qofka iska jari rabo waxa ka mid noqonaya in dabeecadiisa isbedesho sida xanaaq iyo dagaal badan walwal iyo cabsi sidoo kale calaamadaha jirka ka soo muuqanayo waxa ka mid ah dhidid fara badan lalabo qarqariyo dhibaatooyin ay leedahay Bilgabalinka waxa ka mid ah qaadashada xaddiga badan gaar ahaan marka lagu daro daawooyin kale ee leh hurdada daawooyinka hurdada leh waxay keeni kartaa dhibaatooyin neefsashada ah bukaanada loo qoray Bilgabalinka waxa lagu la taliyaa inay ka fogaadaan qamriga ama daawooyin kale ay isla isticmaalin Tramadol asagana waa xanuun baabi'iye xoogan wuxuu ka mid yahay koox daawooyin ah loo yaqaano opioids waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo marka uu jiro xanuun dhexdhexaad ah ama mid daran tusaale ahaan waxaa la siiyaa bukaanka marka qalliin lagu sameeyo ama marka uu soo gaaro dhaawac halis ah ama marka noocyada kale ee xanuun baabi'iyaha ah oo opioidka ahayn ay wax ka tiri waayaan maareynta xanuunka bukaankaas Tramadol waxaa loo isticmaalaa badanaa
muddo gaaban la isticmaalaa waxaana qasab ah in dhakhtar uu soo qoro ama uu siiyo bukaankiisa daawadan inta badan laguma